marka Shopify account ka samaysteed website ki dhisato ayaa waxaad sameynaysaa inaad tagto AliExpress marka AliExpress waxaad sameynaysaa inaad alaabihii ka soo qaadato kadib aad website-kaagii keensato dropshipping ee aad Shopify ka iibsatay kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxaanu ku qaadan doonaa waxoogaa aynu doonayno inaynu channelkeena kusoo kordhino iyo waxyaabaha aynu doonayno inaan la wadaago aad fikirkiina iyo waxaad ka qabtaan aad hoos ugu reebtaan insha Allah comment-iga hoose si aynu markaa wixii aynu isula afgarano intaanan mawduuca bilaabin ama aanan casharka bilaabin waxaan ka codsanayaa fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigelisay muuqaalkan dad fara badan u gaaro comment-iga hoose noogu reeb aragtidaada Soomaalidu waxay ku maahmaadaa bartiyaqaan barimo kala taasoo micnaheedu yahay qofku haddii inta yar uu yaqaano uu ku koobnaado inta yar aad taqaano haddii aad ku koobnaato oo aadan isku dayin inaad waxyaabo kale cusub barato ama aad wax soo kordhisato ama aad wax kale soo kordhiso waxaad noqonaysaa qof aan meel loo dhaqaaqin meelna aan u socon wax horu socodana aan yeelanayn ayaad noqonaysaa haddaba taa maxaa inaga jira ama inaga khuseeya ee ay naga galay mahmaahdaas waxaan sababtoo ah waxaan arkay aan mahmaahdan u soo qaatay waxa weeyaan arday fara badan oo isoo weydiinayay mowduucyo la xiriira waxyaabaha aynu halkan kusoo gudbino hadday noqdaan graphic design iyo hadday noqdaan video editing ba waayo ardayda qaar baa mowduucyada gaaraysa mowduucyo kale soo weydiin sida Facebook oo kale imka markuu qofku doonayo inuu wax ku soo gudbiyo muuqaalo uu soo geliyo qaabku qofku Facebookiisi uu kor ugu kicin karaa xidhiidh baleyn imka qofka graphic design ka yaqaana ee doonayo inuu tutorial iyo muxuu ahaay ama agency afurta ama tutorial ku soo bandhigo Facebook muuqaalo soo gelinaya qofku wuxuu u baahan yahay in wixii uu kobciyo marka xirfadeena xidhiidh baa la leedahay qofka graphic design bi yaqaana laakiin wuxuuna garanaynin toolkii uu ku kordhin lahaa followerskiisa iyo dad fara badan uu gaarsiin lahaa contentkiisa taas ayaanu garanaynin marka maxay noqonaysaa intii uu yaqaanay bay caqabad ku noqonaysaa marka waxa dhab kugu noqonaysa kugu dhawoobaysa bartiyaqaan bariwmo kordho iminka hadii graphic design oo kaliya garanayso laakiin aadan garanayn toolkii aad u isticmaali lahayd si aad dadka u gaarsiiso waxaaga ama dadka u tusto waxba kuma kordhin wixii waa taqaanaa laakiin waxba kuma kordhin marka waxyaabaha noocaas oo kala ah ay ardayda qaar soo weydiinayaan iyo qaar kale fara badan marka waxaan is idhi markastana waxaan sameeyaa qofku markuu wax soo weydiiyo waan tilmaamaa meel baan u tilmaamaa ayaan ku dhahdaa ama YouTube heblaaye ka daawo ama meel heblaaye ka eeg ama website hebel ka dhigo ma garanaysa marka waxaan markasta qofkii de lama tilmaami karo markasta halka tag ma oran karo marka waxaan is weydiiyay niyo bal adigu maxaad muuqaal looga sameyn weydii oo adiga laftaadu haddii de wixii aan idinku dhaamo inaan idinku soo kordhiyo way tahay oo aan idin soo bandhigo aan idin tuso waxaan siin muuqaal adigu maxaad uga sameyn weydii markii hore waxaan ugu talagalay bartan ee aan furayay YouTube-kan 2021 waxaan ugu talagalay xirfadda graphic design oo kaliya inaan ku soo gudbiyo oo aan ku soo bandhigo oo cidii markaa aan wax u faa'iideyn karay aan wax ku dhaamo ay iga faa'iideysato qaabkaasan markii hore ugu talagalay laakiin imika waxaan arkay wixii inaan graphic design kaliya iyo video editing kaliya aan lagu koobnaan karin wixii ay u baahan yihiin qofkii in ilaa toolkii loo dhiibo uu waxaan ku suuq geysan lahaa uu suuqa kula geli lahaa hadduu shaqo doonayo ku shaqo tagi lahaa hadduu lacag ku soo saaranayo Facebook ama YouTube ha noqoto meeshuu doonayo ha isticmaale uu ku soo saaran lahaa in la tuso laakiin haddii graphic design oo kaliya aad u dhiibto qofkii meel uu la tagana aanu garanayn dhib ayay noqonaysaa marka sababtaas ayaan muxuu ahaayay u leeyahay ayaan wax u soo kordhinaynaa mahmaahdan aan u soo qaatay bartiyaqaan bariwmo kordho haddii marka slide-ka ku xiga aynu tagno waxa weeyaan maxaa wax laga bedelaya channelka imika aynu haysanay Sulf Graphics wax aliyaalo wax laga bedelaya ma jiro oo magaca ma noqoto ama loogada noqoto waxba laga bedel maayo laakiin wax laga bedelaya waxa weeyaan mawaadiicda iyo waxyaabaha lagu soo gudbinayo channelka ayuunba mowduucyo kale lagu soo gudbinayo oo laakiin qasab ay tahay inay related leeyihiin ama ay ku xidhan yihiin waxyaabaha aynu hore soo gudbinay ama graphic design noqoto ama video editing noqoto wixii inay linked leeyihiin oo ay ku xidhan yihiin oo wixii ay dhinac kala xiriiraan laakiin waxaan sinaba ugu xidhnayn haddii aynu nidhaahno waynu ku soo gudbinaynaa waxay naga khalkhalaysaa sidaynu qaabkaanu wax u soo gudbinaynay oo wax laynoogu soo hagaagaya la waaya laakiin waxaan isku daynaa wixii at least inay isku xidhan yihiin oo ay muxuu ahaayay wax isku daba xidhan yihiin oo aan kala furnayn imika kale waxyaabaha aan muxuu ahaay macquulka ahayn waxa weeyaan imika haddaan ku dhaashay kafaneed baan halkan idinku soo gudbinayaa ama vlogs baan idinku soo gudbinayaa de wax channelkii looga bartay ma wax related la ahna ma aha wixii aynu meesha ku soo gudbinaynay laakiin imika haddaan ku iraahdo waxaan soo gudbinayaa qaabka Facebook-gaaga aad u kubcin lahayd ama aad waxa u soo kordhin lahayd related baseline oo qofkii graphic design ka yaqaanay social media soo galay doonayay inuu kor isu qaado
uu u baahan yahay inuu barto wixii halkan in laga helo weyte markastana de qofkii lama tilmaami karo oo meel kale looma diri karo waxaan ugu talagalay bal wixii inaan idin wada diyaariyo halkan idin wada keeno halkan aad ka wada heshaan wixii aqoontayda inaan halkan kula wadaagay aan waxa ka hayo aan ka aqaano inaan halkan kula soo gudbo haddaba waxaan isweydiinaa haddaba wixii in la specify gareeyo weyn oo wax gooniya laga dhigo oo leeyahay waxaasaynu soo kordhinay waxaasaynu ka hadli doonaa laakiin haddaan ku idhaa waxaasaynu soo kordhinayna de hadhow wixii wax aad ciwaan u yeelata ma noqonayo oo aad tiraahdo iminkoo kale haddaan ku idhaahdo waxbaan soo kordhinaya laakiin ana wixii kuu sheegin hadhow waxaad igu soo hagaagta garan maysid laakiin haddii aan ku idhaahdo iminka waxaynu soo kordhinaynaa Facebook adska iyo Facebook marketingka qaabka wax loogu gudbiyo advertisementka qaabka loo geliyo pageska qaabka followerska faraha badan leh loogu xidho ayaynu soo gudbinaynaa haddii aan ku idhaahdo hadhow marka aad wixii u baahato waad soo xasuusanaysaa waayo waa kuu sheegay waxaan soo gudbinayo markaas sababtaa darteed waxaan doonaynaa wixii inaynu specify garayno aynu wixii wax gooniya ka dhigno haddaba waxa u horeeya waxa weeyaan aynu soo kordhinayo waxa weeyaan waxyaabaha making money online loo yaqaano ama side hustleska waxyaabaha loo yaqaano oo ah wax uu qofku shaqadiisa ku kabo at least haddii shaqada lagaa eriyo inaad sii taagnaan karto intaad shaqo kala helayso waxaa loo yaqaanaa markaas side hustle ayaa loo yaqaanaa luqadda afka Ingiriisiga laakiin inaga ahaan waa waxyaabahan sidee online lacag looga sameeyo kale aynu naqaano ayaa weeyaan marka wuxuu ka caawinaya waxani ma aha badanka de waa laga yaabaa dadka qaar oo online ka company waaweyn ka sameystay oo lacag far badan ka helayna jiraan laakiin waxyaabahani badanka ma aha wax qofku uu shaqadiisa u daayo oo muxuu ahaa lacag far badan uu ka helayo haddii uu u daynayna waxay qaadanaysaa muddo aad u fara badan oo 3 sano ama ka badan ah ayay kugu qaadanaysaa in income la taaban karo aad ka keento waxan oo aad ka soo saarto oo muxuu ahaa marka aad wixii aad shaqadaadii u dayso aad uga fadhiisato shaqadaadii waxyaabaha qaarkoodna waxaynu u baahannahay inaynu tashuushka ka saarno marka mawadiicda aynu ka hadli doono waxa kamid ah affiliate marketingka ama waxyaabahan loo yaqaano suuq geynta oo ah dilaalkii aynu naqaanay magaalada dhexdeeda joogay guryaha iyo alaabaha soo iibinayay oo online ka dhex yimid marka affiliate marketingka haddii aan ku yaraftiimiyo waxa weeyaan imkoo kale waxa kamid ah Amazon Associate marka Amazon Associate waxa weeyaan Amazon baad galaysaa kadib waad iska diiwaan gelinaysaa marka waxa la xareystaa bahalkii profile baad qoranaysaa ama waxaad buuxinaysaa fileka markaad buuxiso haddii lagu soo aqbalo kadib Amazon dhexdeeda ayaad store yar ka furanaysaa marka waxaad samaynaysaa waxa weeyaan alaabta Amazon gudaheeda ku jirta ayaa waxaad samaynaysaa inaad link lagu siiyo gaara sida imkoo kale waxaad ku fahmi kartaa waxaan loo yaqaano muxuu ahaayay anu mawduucayn maalinta dhaweyd ka hadlaynay ahaa Sweatcoin-ka Sweatcoin-ku wuxuu leeyahay qayb influencer-ku marka waxa weeyaan in qofka link baa la siinaya imkoo kale waxa la siinaya sweat.com/abdifataax baa la siiyay waa soo qaadaya linkigii qof baan u diraya qofku markuu la soo dego muxuu application-kii ee uu gelayo invite-kaygu aqbala invite-kayga markuu aqbalo wuxuu ka dhigan yahay qof aan anigu application-kii u soo dejiyay oo aan anigu diiwaan geliyay ka dhigan marka wuxuu hoos imanaya aniga ayuu hoos imanaya marka qaabkaas kale weeyaan alaab baa lagu siinayaa link gaara lagu siinayaa linkigaas aad qaadanaysaa ama website-kaaga dhigo oo website adigu intaad samaysato alaabta affiliate-ka ah dhan oo lagu siiyo adigu soo tax oo halkan ku iibi marka qofku markuu website-kaagi soo booqdo ee uu buy now yiraahdo ama uu iibsanayo ayaa waxay geynaysaa Amazon website-keedii marka Amazon waxa ku qabanaysaa waxa weeyaan delivery-gii iyada qabanaysa lacagihii iyada qabanaysa qofkii iyada customer care-kii u samaynaysa laakiin adiga kaliya waxa laga rabaa inaad wixii suuq geyso kaas loo yaqaan affiliate marketing dropshipping waxa weeyaan isaga in yar buu ka duwan yahay affiliate marketingka dropshipping marka badanka waxa isticmaalaan dadka dropshipping ahi wax loo yaqaano AliExpress bay isticmaalaan iyo waxa la isku isticmaalaa Shopify marka Shopify baad account ka samaysanaysaa marka Shopify account ka samaysato website ka dhisato ayaa waxaad samaynaysaa inaad tagto AliExpress marka AliExpress waxaad samaynaysaa inaad alaabihii ka soo qaadato kadib aad website-kaagi keensato dropshipping ee aad Shopify ka iibsatay markaad dhex keensato qofku hadhow markuu ku dhufto linkigii waxay tagaysaa AliExpress buu tagayaa qofkii alaabtii buu dalbanaya alaabtii marka AliExpress waxa ku qabanaysaa inay delivery-gii samayso ay qoftii alaabtii u deliver garayso lacagtiina ay ku qabato customer care-kiina ay ku sameeyaan marka alaabtii qofkii loo diro alaabtii qofkii helo lacagtiina AliExpress hayso waxay sameynayaan wixii actual price-kii ama qiimihii saxda ahaa ee shayga ay siinayeen iyagu ayay ka goosanayaan wixii profit adigu saaratayna waa lagu siinayaa kaasi dropshipping weeyaan Amazon FBA-duna waxa weeyaan Amazon baad store ka dhex furanaysaa oo Amazon baad ka qayb noqonaysaa store-rada Amazon ku jira ayaad ka qayb noqonaysaa marka iyaga waxaad samaynaysaa waxa weeyaan
alaab ayaa muxuu ahay waxaad samaynaysaa alaab bad Amazon ku aragtay imko kale aad u soconayso suuq leh kadib waxaad samaynaysaa alaabtii baad u diraysaa warshad China ku taala waxaad leedahay alaabtaas oo kala la sameeyo alaabtii oo kala lagu sameeynaya kadib waxa lagu soo dirayaa sample-kii marka lagu soo diro sample-kii baad eeganaysaa alaabtii ma tahay baad eegaysaa haddii ay alaabtii oo kala noqoto ama taa doonaysaa noqoto waxaad samaynaysaa in aad alaabtii tiraahdo waxaad igu dirtaan Amazon warehouse-ka ama bakhaarka Amazon igu dira marka bakhaarka Amazon marka lagu diro iyaga lacagtii baad siinaysaa marka waxaad samaynaysaa alaabtii inaad profit saarato alaabtii imko kale $10 baa lagu sameeyay 10 kala saaratay 20 baad Amazon ku gashanaysaa kadib Amazon waxa ku qabanaysaa packaging-kiina ku samayso alaabtii ku margalayso delivery-giina ku samayso customer care-kiina ku qabato muxuu ahay ay ku qabato lacagtiina ku qabato marka Amazon waxay samaynaysaa waxa weeyaan magaceeda ayay ka iibinaysaa 15% oo commission ahna way ka qaadanaysaa kaas waa Amazon FBA-ga Google AdSense on blogging websites baa isaguna jira oo ah sidan YouTube-ka loogu xiga sidan YouTube-ka AdSense-ka loogu xidho in website-yada blogging-ka loogu xidho lagu soo qoro maqaalada lagu qoro website-yada maqaalada lagu qoro imko kale kuwa caasimada online oo kale wararka lagu soo qoro laacib.net oo kale blogging websites-ka articles-ka lagu daabaco ayaa AdSense lagu xidhaa marka AdSense isagu wuxuu ka faa'iideysanayaa waxa weeyaan dadka kugu xidhan adiga ayaad ka iibinaysaa Google waxaad leedahay marka dad inta la eeg baa soo boqdo website-kayga waxaad ii samaysaa haysiis saaro anigana marka commission isi qaabka weeyaan blogging-ku making money on YouTube and iyo wixii la mid ahayna waxa weeyaan YouTube-ka qaabka YouTube channel cusub loo bilaabo qaabka aad muxuu ahay followers aad u heli lahayd muxuu subscribers badan iyo views badan aad u heli lahayd ama muxuu ahay aad u kobcin lahayd ma oran karno views badan iyo subscribers badan qaabka aad u geli lahayd laakiin qaabkii si effective ah oo saameyn la aad ugu kobcin lahayd waayo wax waliba level isba maraa haddii aad damacdo in adoo imika maanta YouTube furtay haddii aad damacdo isla maanta inaad 1000 subscribers gaadho wax macquul ah maaha waana adag tahay oo sida lagu gaaraa ma fududa inaad scam geliso group iyo meelaha la wareegto ku share garaysa mooyee si kale aad ku gaari kartaa ma jirto inaad content-kaaga ka shaqeyso oo aad si fiican u soo bandhigto umbaad ku gaari kartaa marka kaasina isaguna waa ka waa qaybta marka main lacag qaabkii aad uga sameyn lahayd online-ka oo inagoo marka isku dayina waxyaabaha qaar inaynu tashuush bixino waxyaabaha Soomaaliya ka shaqeynaya marka inaynu sheegno ardayda Soomaaliya gudaheeda ay ka qaban karaan ama ay kaga shaqeysan karaan marka waxa inoogu xiga waxa weeyaan slide-kan xiga teknolojiyada marka teknolojiyadu iyadu aad bay muhiim inoogu tahay waayo labada shay ee aan joogs isbedelkooda aanu joogsanin waxa kamid ah waa teknolojiyada iyo sayniska maalinkii Ilaahay keenaba wax cusub baa la tixraaca la soo saara wax cusub baa la ogaadaa teknolojiyadana maalinkii Ilaahay keenaba wax cusub baa lagu soo kordhiyaa wax cusub baa maxaa lagu soo daraa inaga waxaba inaga khuseeyo aynu tusaale yar fudud soo qaadan karnaa software-ada aynu ku dhigno graphic design-ka iyo video editing-ka sanad walba features cusub baa lagu soo kordhiyaa sanad walba version cusub baa la soo saaraa version sanadka gudihiisa waxa la soo saaraa version-kii la soo saaray oo kolomyo kala duwan leh ama qaab kala duwan leh oo yara kala dambeeya iminko kale hadaad aragto Adobe Photoshop 2022 waxaad arki kartaa 4 version Adobe Photoshop 2022 oo aad mid ku arki karto February mid aad ku arki karto August mid aad ku arki karto October mid aad December ku arki karto oo laga yaabo sanadka gudihiisa in 3 kala duwan la soo saaray oo features kala duwan ay ku jiraan marka waxaan isla eegaynaa teknolojiyada waxa kale oo kamid ah oo aynu halkan ku soo gudbin doonaa waxa weeyaan waxa naga khusay teknolojiyada laptopiska ay shirkaduhu soo saaraan waayo waxaan u baahanay inaynu ogaano laptopkani video editing-ka ma ku fiican yahay oo ma kugu shaqeynaa si fiican ma ugu qaban kartaa graphic design-ka si fiican ma ugu qaban kartaa wixii aad baranayso waxbarasho aad adigu doonayso kuweebu ku haboon yahay kuweebaan ku haboonayn maxaa xadidaya awoodiisa maxaad ku eegi kartaa laptopkani inuu mid wanaagsan yahay in kale waxyaabahaas oo kale waxyaabo fara badan oo teknolojiyada inaga khuseeya ayaa jira oo aynu soo gudbin doonaa insha Allah si markaa ardaygu uu warbixin fiican uga helo waxay noo xiga waxa weeyaan courseska iyaga maxaa laga yeelayaa ama course iyaga maxaa laga yeelayaa waxaan hubaa marka 180 inaad maskaxda ku hayso ama aad isweydiinayso niyada hadii waxyaabahan la soo kordhiyay courseska talo haday halkay qabanayaan hadii aan ku xasuusiyo mawaadiicda waxa loo soo kordhinayaa waxa weeyaan ama halkan inuu soo gudbinaa inuu soo kordhinaynaa waa in aynu kabno courseski oo courseski aynu ka dhignaa ama video editing ama graphic design qaar qofkii wax ku qabsan karo ama wax tar u leh ama wixiisii courseski uu dhigtay graphic design iyo video editing-ka inuu sidii wax ugu qaban lahaa u barto ama online ha noqoto ama offline ha noqoto ama self employed waxa loo yaqaan ha noqoto Facebook iyo YouTube afarta qofku oo waxa ku soo gudbiyo qaab effective ah qaabkii wax soo gudbin lahaa qaabkii wixiisan u soo qin lahaa in waxyaabahaas ay ka caawiyaan in ban mawaadiicdan soo kordhinaynaa
qaabka weyn insha Allah waxyaabaha la soo kordhinayana waa inta waxa aad u fara badan oo ka baxsan topic-geenana maaha waxa kale doonayay inaan idin sameeyo wargelintu waxa weeyaan waxaan idinku wargelinayaa waxyaabaha aynu soo kordhinay imika mawaadiicda waxaanu ku soo gudbin doonaa kaliya waxa weeyaan YouTube-kan TikTok account-keena marka waxaan ka codsanaa haddii aadan TikTok account-kayga aadan soo follow garaynin ama aadan follow yahayn linkiga waxaad ka heli kartaa description-ka follow noo soo saar oo halkaana nagala soco iyada lafteeda waxaan kusoo gudbinaa muuqaalo gaagaaban oo muxuu ahaayey cashar ah iyaguna waxa kale oo kusoo gudbin doonaa Instagram iyadoon la soo gelin doonin marka Facebook page-ka marka Facebook page-ka isaga waxaan ugu talagalaynaa wixii graphic inaan soo gelino ama sawirre graphic design badanka marka waxaan ka diin doonaa inaan muuqaalo soo gelino waayo waxaan diinaa wixii in isku dhex qasmo oo waxaan ku deynaynaa kuwa loogu talagalay in content-ka lagu soo gudbiyo video social media ah sida TikTok iyo video YouTube oo kale oo iyaga loogu talagalay in muuqaalo lagu soo gudbiyo kuwaasaan ku soo gudbin doonaa aad iyo aad baa umahadsantiin waxaan ka codsanaya fadlan haddii channel-ka cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigelisay muuqaalkan uu dad fara badan u gaadho commentiga hoose noogu reeb aragtidaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu